مقالك waxaan inaan uga hadlo actions can cure your consciousness ficilku waxa uu daaweyn karaa consciousness-kaaga saamaan ogsoonahay consciousness-keena wuxuu la shaqeeyaa shan idris oo ah aragga maqalka dhadhanka hurinta iyo taabashada ayuu la shaqeeyaa consciousness-keena so consciousness-kaagu waa experiencing yourself observing your thought in fikradahaaga si deep aad u garato naftaada aad khibrad u yeelataa waxaa la yidhaahdaa consciousness and ficilada marka qofka uu sameynayo saamaan ogsoonahay waxaa jira internal world and external world external world keena waa reflection to our internal world sidaa darteed any external world any action ka dhaca ficil waliba oo ka dhaca wuxuu noqon doonaa mid aad adigu experience karayso oo aad u experience gareyn doonto as a joy mid adiga ku raali gelin noqdo oo amase as a pain mid adiga ku xanuujin noqdo amase as a magaranaysa you know any experience ahaan as a stress in adu dareentid mid kugu beeray noqdo as a you know depression noqdo as a magaranaysa joyful noqdo waad experience gareyn doontaa any actions aad ku sameysad external marka meesha soo waxay tahay still adigoo ku dareemay stress iyo depression ayaa action ayaa sababay inaad stress iyo dareentid soo ma action kale ayaad ku bedeli kartaa ficil ayaad ku bedeli kartaa ficilkaasna wuxuu ku yar garan karaa stresska hadda ama depressionka hadda consciousness-kaaga uu dareemayo saan wada ogsoonahay ibni aadamka marka uu dhasho ilaa marka uu meesha kaliya uu action ku sameyn karaa ficil uu ku sameyn karaa waa dunida saale markaad geeriyoto dabcan ficil damba ama amal damba sameyn kartaa ma jiro intaadan dhalan deemaadan dhalan ka hor soo inta aad nooshahay kaliya aad ficil sameyn kartaa ficilka marka hadda ka dhashay inaad stress iyo depression dareentid oo ah inaad hurdada ka tagtid inaad access la'aan ficil baa sababay ficilkaas sababay and other action kale baa jira that action kale can cure your consciousness sida exercise-ka diet fiican inaad qaadatid inaad hurdo fiican heshid can cure your consciousness really waad ku dayi kartaa oo stresska kaaga bixi kara so actionska marka u fiirsatid actionmo anaga noo wanaagsan oo haddii aan ku dhaqanno waxay noqon doonaan kuwa anaga noo wanaagsan oo anaga aan garanaysaa ku dareeno experiencing joy experiencing health experiencing you know success guul inaan ku dareeno ficiladaas meesha keliya ee noo ogolaan karaa waa external world waa dunida dibadeed sababtoo ah dunida gudaheed waa kan sababay vibrating meesha ay wax ka soo baxayeen wey so meeshaas isla iyada gudaheeda dhexdeeda action kuma sameyn kartid laakiin se meesha kaliya ku ogolaan karta in action aad sameysid ficil aad sameysid ficilkaas ku daaweyn kartid your consciousness-kaaga waa external world so dunidan waa inaan u aragnaa mid anaga daaweyn karta mid anaga aan ma garanaysaa consciousness-keena stresska uu dareemayo ama depression ka dhashay laakiin ficil baa ka dhashay ficilkaas inaa intaa bedashay aad ficilka la imaan kartid ficilkaas aad la timidna uu noqon karo mid kiyur garay mid daaweeya consciousness-kaaga aad dareentid ma garanaysaa wellness ma garanaysaa firfircooni ma garanaysaa activity fiican aad ka qayb qaadatid so actionska waxay noqon karaan kuwa anagana daaweeya waa daawadeena xitaa tusaale qofka intuusan ficil sameynin ka hor aan tusaale kasoo qabtay canuga yare hadda dhashay ama canug yare dee micnaha 4 ilaa 5 ilaa iyo you know jira canugaas waxaa arkaysaa markii uu horta wuxuu isku dayaa intuu yar yahay 3 2 inuu dareemo shantiis dareensid waxa ay yihiin maqalkii aragii iyo taabashada kale tusaale markii uu taabashada uu u bogo wuxuu isku ma garanaysaa tusaale hooyadiis oo kale mar walba inay taabato ay xabadkeeda dul saarto wuxuu u experience garan doonaa as a joyful inay tahay wuxuu ogaan doonaa ma garanaysaa raaxa inay tahay inay asaga u fiican tahay ayuu dareemi doonaa mar walba marka ma garanaysaa laga qaado xabadka hooyadiis wuu oy doonaa ileen mar walba wuxuu rabaa inuu dareemo macnaha meeshaas deganaanshaha inuu ku dareemo ayuu rabaa
markii hooyadiis ka maqan tahay ama uu arko in hooyadiis soo socoto wuu u soo ordayaa inta soo waa inuu habsiyo so intuusan ficilkaas marka habsiintaas dambe iyo ficiladaas un waxay ka dhasheen asagii in uu ogaaday inuu dareemo horta consciousnesskiis shantiisa dareensiday in ma garanaysaa taabashada iyo habsiinta in ay asaga raaxa u tahay so asagii daaweysa marka qofka marka ibni aadamka intuusan ficil sameynin ka hor waxaa loo baahan inuu aad uga fakaro aniga waan experience gareyn doonaa ficilka marka intaan experience gareyn ka hor marka ma yahay mid aniga i daaweyn kara ma yahay mid aniga ma garanaysaa problemka aniga ama actionka ama waxaa laga yaabaa inuu sababo problem hadda i haysan oo hadhow i imaan doona analyze inaad samaysid dabcan analyze waa la ogolyahay analyze inaad samaysid ma garanaysaa aad sii ogaad intaad actionka sii sameynin ka hor kadibna amase inaad plan soo degto oo actionska marka hore aad soo analyze garaysid kadibna ku dhaqaaqo oo noqdo mid adiga guul ku gaartid oo inta haysta hadda in ka badan ku siin kara meesha kaliya awoodana waa external work waa dunida dibadeed so dunidan dibadeed ficil walba anaga waa inuu sameyno waa inaynu marka hore ka fiirsanaa maxaa yeelay waan experience gareyn doonaa wuxuu noqon doonaa mid annaga consciousness-keena ka qayb qaata or amase joyful or amase ma garanaysaa problem inuu noo sababo amase problem garanaysa inuu ma garanaysaa dee noo cure gareeyo oo noqdo mid annaga cureness oo annaga noo daaweeya inaa habeen ma garanaysa adoo dhafri jiray inaad ficilkii hore bedeshid oo ah inaa habeenkii ciyo hore seexatid seexashada habeenkii ciyo hore going bed early inaad waqti hore dii seexatid maxay sababaysaa feeling well subaxi ina energy fiican adoo haya subaxi aad soo kacday so ficiladeena oo dhan waxay noqon doonaa kuwa daaweeya consciousness-keena waxaa loo baahan yahay marka inaan mar walba raadino aqoon ama se ma garanaysa wax badan aqrino si annaga aan u ogaano inta anaga capable of inta anaga awoodi karno inta anaga nafteena ay awoodi karto kadibna ficiladaas noo sababaya inaan dareeno qiimaha nafteena ama se awoodaha nafteena inaan dareeno ficiladaas noo sababi kara inaan la imaano once aan la imaanana waynu sameyn karnaa haddaynu sameynana experiencingkeena ama se waxa anaga khibrad ahaan u heli doon waxay noqon doonaan kuwa anaga anfaca aakhira iyo adduunba so intaan ficil sameyn ka fiirso ficilkaaga maxaa yeelay hadhow waad experience gareyn doontaa oo waad khibrad ahaan u heli doontaa midka aad experience gareey ficilka aad adiga experience gareysidna markaa soo bixi doon maxaa yeelay experience-kaagu maxaa yidhahdaa hore ayuu u galay so waa la dhima doontaa experience-kaaga tusaale hadda inta badan qofkeena markii aakhiro uu tago ilaahay ka magangelinaayo waxaad arkaysaa kuwa ahlunaarka اللهم نجينا إني نحيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت إلهي وعلي محارب أنا صوص سميه عمل وناكسن عمل كاس وناكسن ماش أو قلان كرت حقيه دنيدان بيه حيالي مركي أنت كده فعل لما يمان كران دنيدان أيا هيد ماش أكشنز أما فعلك أو قلانيسي أي لكن كم يسفيديس so لكن another thing فعلوا يسميين طبعا لكن فعلات يسميين أي experience كريين experience كاس يسميين لكن ما دام فعل الله أقولين يقول بدلي كران ما بدلي كران so وهو يسحر لكن مركي الدنيا اللي جوجو فعل ولي بقى هرب صوص سميس أما فعل ولي بقى ما قرن يسا عادي كودريسية وح عادن جعليسا وبدلي كرتا ماشي كلي يكون بدلي كرت فعل كله وأساق بالعكس لا وأساق ما garanaysa adigu daaweyn kara meesha kaliya aad ku sameyn kartid waa dunida so waa inaan ka fiirsan actionskeena maxaa yeelay any actions we will experience waynu khibrad ahaan u heli doonaa intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo aad mahadsantihiin share iyo like iyo comment-ina yaan iga leeyahay thank you so much